saakay muqdisho weli waxay la ciirciiraysaa saameynta fatahaadda ka dhalatay roobabkii u dambeeyay ee ka da'aya magaalada. weli waxaa xiran wadooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha, iyo sidoo kale waxaa jira khasaare kale oo ballaaran. ka hor intaan kuu faahfaahin, fadlan daawade like saar muuqaalkani oo aragtidaada commentiga inagula wadaag, falowdee boggeena si muuqaalkani meel sare u gaaro. daadadkii ka dhashay roobkii saacadaha koobnaa ka da'aya muqdisho ayaa xiray wadooyin muhiim ah. waxaa xayirmay xaafado qaarkood oo aan laga soo bixin karin dhaawaca iyo meydka, kadib markii ay biyuhu hareereeyeen qaarkoodna dumiyeen dhismaha qaar. haba ugu sii darnaato ilinkii hore ee laga gelayay garoonka aadan cadde oo weli xiran, biyuhuna buuxdhaafiyeen. dhanka dowladda iyo maamulka gobolka banaadirna ma jirto dadaal gaar ah oo loogaga hortegayo fatahaadaha ka dhashay roobabka xooggan ee ka da'aya caasimadda. shacabka oo ah canshuur bixiyaasha laga qaado malaayiinta dollar ayaanan weli helin xuquuqdii ay lahaayeen, iyaga oo weli la hal ay ka maraan ama meel ay ka maraan daadadka ka dhashay raxmaddii alle saacadihii u dambeeyay da'ayay. daawade muuqaalkani like saar oo falow soo dhee boggeena siina sheer garee si muuqaalku meel sare u gaaro.